waa mahadsan tahay runtii haddii la yidhaahdo ciidamada Ethiopia markii hore ay soo galayeen haddiiba ay ku soo galeen maanshaha ATMIS oo African Union iyo UN ku ay mas'uul ka yihiin haddii ay sii joogayaan iyo haddii ay ka baxayaan go'aankaasi mid dawladda Soomaaliya kaligeed u yaala maaha waa go'aan saddex geesood ah marka ila ma aha inay dawladda Soomaaliya kaligeed go'aan ka gaari karto arrinkaas yay tahay cidda kale ee loo baahan yahay inay go'aanka qayb ka ahaato markaa waa labadaas ururan ku sheegay UN-ka iyo waxa waaye iyo African Union oo labaduba korjoogteynaya waxqabadka ATMIS ku korjoogteeya qarashkoodana bixiya siyaasadaha ay ku shaqeeyaan ee amnigana ayagu wakiil ka ah oo maanta oo hadda xataa u joogo UN-ka qof ka socdo Soomaaliya oo u fadhiyo marka arrimahaasi waa arrimo saddex geesood ah oo aan go'aankeedu uusan ka soo bixi karin madaxtooyada Soomaaliya kaligeed laakiin labada dhinac ee aad sheegtay iyo caalamkuba way ka warhayaan in xilligan Soomaaliya iyo Ethiopia ay xiisad baan ka dhaxayso Soomaaliya waxay u aragtaa in dalkeedii iyo qarannimadeedii iyo madax bannaanideedii la soo farageliyay marka miyaanay xaq u lahayn in ay ciidamo kale xataa haddii ay u baahato ay ku bedesho booska Ethiopia qarannimada Soomaaliya muddo dheer ilaa 30 sano 32 sano soo dhaafay waxa ay ku taagneeday ururada caalamiga ah aqoonsiga Soomaaliya wada jirkeeda ay siiyeen oo ay ku adkeysteen inay Soomaaliya wada jirkeeda oo jiro oo gaar ahaan dawladahaas oo hadda adduunka ka hogaamiyo Mareykanka iyo ay ka mid yihiin haddii kale Soomaaliya sida South Sudan loo jaray ama Eritrea loo jari lahaa loo kala jari lahaa marka ilaalinta qarannimada Soomaaliya iyo wada jirka Soomaaliya intii aan kala daadsanayn oo dawladaheenu dawlad la'aanta ama dawlado aan tabar lahayn ay jireen waxa waaye hay'adahaas caalamiga ah ama hay'adahaas oo urur goboleedyada ah ayaa ilaalinaya gaar ahaan UN-kana sidiisa wuxuu ku shaqeeyaa siyaasadaha dawladaha oo marka ayagu sameeysta markii hore waaweyn sida Mareykanka iyo wax lamida marka aragtida Abiy iyo aragtida Ethiopia ee ku aadan arrintiisa badda Soomaaliya taasi waa gardarro waana laga soo wada horjeedaa shacabka Soomaaliyeedana u taagan hayeeshee haddii ay noqoto arrinta ATMIS ciidamada ku jira go'aanka gaaristoodu waxay u baahan tahay inay ka wada fariistaan hay'adii aan ku sheegay ciidamo kale lagu bedelay haddii yimaadeen sida hadda kuwa la sheegayo Masar oo kale oo hadda murun badan laftooda uu ka taagan yahay umalaymayo inay wada buuxi doonaan ama wada buuxi karaan baahida loo qabo waa gartay haddii marka ciidamada Ethiopia waqtiga loo qabtay dabcan Decemberna waa uu ku eg yahay xilligii dalka ay joogi lahaayeen haddii aan loo kordhin maxaa dhici kara haddii dawladda Soomaaliya ay ku adkaysato in ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan soo ma aha arrin u baahan in maaragtay la tixgeliyo أنا waxaa ila wanaagsan dawladda Soomaaliya waxyaabaha ka soo baxaya inay noqdaan siyaasada la soo lafaguray la soo kariyay la soo lafabixiyay oo fadhiya oo aan hadhow dulduleel iyo biyadeys yeelanina ila wanaagsan waxyaabo aan haddii aad ku dhawaaqday aan fulin haddii lagu dhawaaqana annaga ay nagu soo noqonaysaa marka ceebtooda dulduleelkooda marka arrinta ciidamadaasi arrin Soomaaliya ka go'da maaha Soomaalidu waa dhihi karaan waxay doonaan laakiin wax go'aanka shalana ma lahayn haddana go'aankooda kaligood ma gaari karaan ma aha in jacayl Ethiopia loo qabo waxa waaye in Ethiopia ay ku timid markii horeba kala daadsanaanteena iyo amni xumadeena iyo isku maqnaashaheena iyo kala maqnaashaheena ayay ku timid welina arrintu waa taagan tahay adduunkuna ka yeeli maayo hebel waa la dagaalay inay iska baxo waayo shalayba safka hore inay yimaadaan ma ahayn hayeeshee waxaa keenay safka hore ayagaa xoogsadeen waa ognaha maanta hadda inta ay faragelinta Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya ku leeyihiin wax la wada og yahay waayo qarsoodiya maaha way durugsadaan sharciyada ayagaa durugsada waxay doonaan sameeyaan faragelintu waa adag tahay marka arrintaasi arrin sahlan ma aha waliba ku sii dar in gudihii dadkii Soomaaliya ay isku diidan yihiin oo maanta go'aanka ka soo baxa magaalada Muqdisho oo san garooba gaarin oo baydhaba ka murmayso oo Hargeysa ka murmayso oo san gaarin
marka go'aankaagi mar hadduusan gaarinba maamuladii Soomaaliya ka jira aysan raali ka ahayn usan gaarin awood aad intaad ku muuqinaysa aad ku fulisana aadan lahayn waa iska dareemi kartaa inuu adiga kugu soo noqonayo waaya xasan waa usoo laaban doonaa sidaad u aragto heshiiska military ee Soomaaliya iyo Masar laakiin dowladii hore ee aad adigu ka tirsanayd waxaa la sheegaa in ay Abiy Ahmed ama ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo Itoobiyaba ay u ballan qaadeen dekado marka xilligaas dowladdaadu miyay kula saxnayd horta aniga waa iga horeeyeen waxyaabahaas oo goliyo aan ku jiray aniga lama keenin wax ku saabsan dekadahaas mana aan arag waxyaabahaasna waa iga horeeyeen wax raad loo la arkay oo la hor keenay golayaasha dawladda looga taliyo sida golaha wasiirada iyo baarlamaankana maanaan arag marka waxyaabahaasi waxaan u arkay inay inta badan u badnaayeen wax laablakaca oo aan meel dheer gaarin waa gartay marka ma jira ayaad leedahay miya wax heshiis ah ama wax isafgarad ah ama wax ballan qaad ah oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu u fidiyay Ethiopia oo dhinaca dekadaha waxii hoos la isugu sheegay kama warqabo laakiin wax golayaasha yimiday oo anigu inta aan joogay ma arag marka lagu daro inaan markaas Ethiopia xiriirka Soomaaliya Ethiopia sidan uu ka fiicnaa oo hadda qariska Turkan iyo dhulboobka badboobka hadda uu Abiy wado barigaas ma jirin oo jawigu intan waa ka deganaa hayeeshee ayadoo ma arag wax golayaashii anigu marka aan joogay la keenay oo ku saabsan arrimahaas laakiin wixii hoos la isugu sheegay kama warqabo waayahay arrinta ku saabsan in ciidamo masaari ay suuragal tahay in lagu bedelo Ethiopia iyo heshiiska military ee Soomaaliya iyo Masar seed u aragtaa adiga horta arrinta Masar waxa isu keenay danaha ma ahay wax istiraatiiji oo weyn oo naga dhaxeeya ma jiraan waayo anigu marka aan akhriyay madaxdii masaarida gaar ahaan madaxdii soo martay ilaa aan warasaadaad waxa ay qoreen aan akhrinayay Soomaaliya uguma jirto istiraatiijiyada ayagu meelaha ay ka fikirayaan istiraatiiji u ah waxa ayaga istiraatiiji u ah Suudaan waxa u ah Liibiya waxa u ah Suuriya iyo Falastiin oo ku hareeraysan haddii laga soo gudbana waxa u ah Ethiopia iyo Uganda oo labada webi ka soo bilowdaan webiga Niilka labadiisa qaybood ka soo bilowdaan intaas ayaga istiraatiijiyada koobaad u ah haba kale annagu kuma jirno laakiin danaa isu keena danahaasu markay isu keenaanna waa kala tagnaa haddana in muddo masaarida annagu waa kala maqneen haddii laga reebo waxyaabo adigu waxbarashada iyo waxyaabahaas ku saabsan waa kala maqnayn marka haddana waxaan filayaa inay Ethiopia annagu dirisaan nahay wax badan waa naga dhaxeeyaan dhaawacyo badanna waa nagu yaaliin oo nagu dhigaan Ethiopia inkastoo ay ayaga laftoodu wixii gumeystii reer Yurub wixii ka horeeyay ayaga laftooda buuraha dushooda lagu hayay laakiin gumeystii reer Yurub ayaa runtii noo gacmo qabtay hayeeshee waa dirisaan nahay laakiin masaaridu haddii ay Ethiopia la heshiiyaan oo ay safgartaan annaga waa naga tigi doonaan marka ma aha annaga isu imaadkeenu istiraatiiji ma aha waa tactic waaye marka waa qabaa tactic laftiisa in laga faa'iideysto oo maanta inta jidkeenu isku soo dhac laga faa'iideysto markuu kala leexad doona laakiin lagu xisaabtamaa loo baahan yahay waayahay marka aan usoo laabano muranka Soomaaliya iyo Ethiopia sidaad sheegtay dowladdaadii hore heshiiska Ethiopia iyo ama xiriirku waa wanaagsanaa dabcan Soomaaliya heshiis ayay lahayd Ethiopia ka hor heshiiskiisa afgaradka ee Ethiopia iyo Somaliland ay wada gaareen marka khilaafka labada dal xaguu ku dambeyn doona ay kula taadiga wallahi horta ogow waxaanu taariikh waaye taariikhduna sideeda annaga dhaawacay hore nagu yaala waaniga ku sheego Ethiopia somehow Ethiopia waxay u muuqaal eg tahay sida Israa'iil ay bariga dhexe ku tahay geeska Afrika ku tahay Ethiopia marka dano reer galbeed iyo ayay ka shaqaysaa ilaalisaa xuduudna maba qabtaba meesha xooggeedu geeya xuduuda sida Israa'iil aan ku arno ka waaye qofkii aan saas uga warqabin taariikhda Ethiopia waa qof warmooga waaye marka wadankaas marka dhulbalaarsiga iska wata oo annaga markii hore ay nimankii reer Yurub oo gumeystay noo gacmo qabteen annagoo ayaga buuraha isaga celinaba oo aysan noo soo degi karin ayaa dhibaatadaas aan hortaala sidaa awgeed dhulna waa uga maqan yahay dhulka maqan aayahooda inay ka tashadaan ay xaq u leeyihiin sida Eritrea ba aayaheeda uga tashatay sida South Sudan aayaheeda uga tashadeen ay xaq u leeyihiin marka aniga Ethiopia u maleemayo inaan naqan doono malab lagu diro ma noqon doono
waayo haarihii hore nagu yaala iyo dhibkii hore nagu yaalo annagu aan ka doqonoon ka indhalaabanay oo aan walaalaheenni xataa qadiyadoodii aan hilmaanay ayaga hadda waxay keeneen in nagu soo duulaan oo badda xaggooda nooga yimaadeen ayagoo markii hore caloosha nooga hayay midi inay dhabarka nooga qabtaan taasina wax la qaadan kara maaha dadka Soomaaliyeed indhahooda inay furaan waaye haarihii annaga nagu yaala Ethiopia ayadaa jugsiisay annaga waxaa noo furan dadka Soomaaliyeed in aan ka shaqeyno sida horeba looga shaqeyn jiray inay gaaraan ay ka talintooda inay gaaraan xaqeena u leeyihiin Ethiopia dawlad jirta maahina waa dawlad xoog la isku lahaayo oo ummada aan shaqo isku lahayn oo ilaa 3,000 sano la soo dhaafay xoog la isku lahaay ahaayeen markii hore buurahaasay joogi jireen oo sooma dhaafi jirin Aksum iyo Gondor iyo Shawa sooma dhaafi jirin laakiin hadda de gumeystii Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa noo gacmo qabteen ayagana wali aad moodaa in noo gacmahayaan oo waan ogtahay 77 wixii dhacay ma moogid marka annaga iyo Ethiopia haarihi aan dhayaynay waa dhaymi waayeen dib ayaa loo danqiyay marka waa inaan ku xisaabtanaa inaan xuquuqdeena aan ilaashana dadka Soomaaliyeedna waa huba inay Ethiopia isaga filan yihiin anigoo gumeystii noo gacmo qabta wali inuu xoog leeyahay noo gacmo qaban kara laakiin inkastoo dawladdu ay tabareertaa laakiin dadka Soomaaliyeed waa isaga filan yihiin marka Ethiopia annaga wixii aan ismoogaysiinayna ayagaa diiday ayagaa dilaaciyay marka arrinteenu meel fiican uma taagna